shir 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay shalay ku yeesheen Soomaaliya ayaa laga soo saaray war qoraal oo looga hadlayay guulaha ay gaartay dowladda federaalka Soomaaliya, caqabadaha ka haysta ammaanka, siyaasadda iyo dagaalka ka dhex oogan Somaliland iyo Puntland. Qoraalka ayaa lagu sheegay in golaha ammaanka uu soo dhaweynayo isbedelada dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda ee Soomaaliya laga sameeyay oo ay ku jirtay doorashadii sida nabdoon ku dhacday ee lagu doortay gudoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. qaramada midoobay waxay sheegtay in midnimada iyo nabad waarta oo laga gaaro colaadda iyo deganaanshaha ay muhiim u yihiin Soomaaliya oo wajahaysa caqabado ka hortaagan helista dowlad federaaliya oo si wanaagsan u shaqeysa. dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa ka hadlay dagaaladii dhowaan gobolka waqooyi ee Sool ku dhex maray ciidamada Somaliland iyo Puntland, iyagoo ku booriyay labada dhinac inay colaadda joojiyaan, ciidamada ay kala qaadaan, muranka ka dhexeeyana ay wada hadal nabadeed ku xaliyaan. qoraalkan oo ku saxiixnaa madaxa golaha ammaanka ee bishan June Dmitry Boloniski, wakiilka Ruushka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ayaa lagu yiri 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada inay u ogolaadaan si buuxda badqabta oo degdeg ah iyadoo aan la hor istaagin gargaarka in la gaarsiiyo dadka u baahan. golaha ammaanka waxa uu ka digay cadaadis uga imanaya gudaha iyo dibadda midnimada dalka Soomaaliya. dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyay halista uu ururka Al-Shabaab weli ku hayo ammaanka Soomaaliya, iyagoo dib u xaqiijiyay taageerada ay la barbar taagan yihiin dadaalka loogu jiro sugidda amniga Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya. goluhu wuxuu cambaareeyay askaraynta carruurta, afduubka iyo gacanka hadalka jinsiga ku salaysan ee lagu kaco Soomaaliya. sida ku cad qoraalkan, waxaa kaloo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo dhaweeyay horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyey qorshaha shuruudaysan ee amni ku wareejinta dowladda Soomaaliya marka ay dalka ka baxaan ciidamada AMISOM. goluhu wuxuu carabka ku adkeeyey ahmiyadda ay leedahay dedejinta iyo fulinta qorshaha qaran ee amniga Soomaaliya ee ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ku heshiiyeen. goluhu wuxuu dhinaca kale soo dhaweeyey sii wadista wadahadallada heerkoodu sarreeyo ee dhex mara dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada si horumar looga sameeyo dhinacyada qaybsiga awoodda iyo kheyraadka, dib u eegista dastuurka, helista dhaqaale iyo canshuur midaysan, iyo u diyaargaroobidda doorashada qof iyo codkiisa ah ee dalka lagu wado inay ka qabsoonto sanadka 2020-2021 iyo dhamaystirka hay-adaha cadaaladda dalka. qoraalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo shalay ay Muqdisho tagtay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda Rosemary DiCarlo. markii ay tagtay Muqdisho oo ay kulan la yeelatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayay DiCarlo hadalkan kooban ka jeedisay fila Soomaaliya. I wanted to come to show how important Somalia is to the United Nations. It's a high priority for the Secretary General and for me. waxaan rabay oo u imid inaan muujiyo sida Soomaaliya ay muhiim ugu tahay qaramada midoobay iyo sida xogayaha guud iyo anigaba ay noogu jirto mudnaanta ugu sareysa. waxaan wada hadalnay madaxweynaha oo aanu ka wada hadalnay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee siyaasadeed sida shirkii qaran ee dastuurka iyo shirkii golaha amniga qaranka. waxaan madaxweynaha uga mahad celiyay guulaha ay dawladdu gaartay oo ah kuwa muuqda. Soomaaliya waxay samaysay horumar weyn 10 sano ee la soo dhaafay. booqashadan oo ahayd teedii ugu horeysay tan iyo markii loo magacaabay xilkan sare bil ka hor, ayaa qayb ka ahayd safar ay ku marayso 3 waddan oo Afrika ku yaala oo ay ku jiraan Kenya iyo